maamulka maxadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Asar College University ee magaalada Burco ayaa munaasabad u qabtay arday baratay luqadda Ingiriisiga kuwaas oo gaaraya 104 arday waxaana munaasabadaasi ay ku qalin jabinayeen ka soo qayb galay maamulka maxadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Asar College ee magaalada Burco waalidiin iyo sidoo kale ardayda ka qalin jabisay maxadkaasi ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Asar College Majid Salabaan Xawaadle waxaana uu ku dheeraaday dadaalka ay ku bixiyeen ardaydaasi baratay luqadda Ingiriisiga. goobtan aan joognaa xaruntan aan joognaa waa Asar University College waa goob university ama levelkeedu level jaamacadeed yahay waxyaabo kala duwan baa lagu dhigtaa kullay oo luqadaas iyo caafimaadka isugu jira Asar waxay soo bilaabantay asaaskeeda iyo kullay waqtigii la asaasay Asad waxay ahayd 2010kii waqtigaas ilaa iyo waqti xaadirkan hadda aan joogno waxay Asar goob waxbarasho oo soo shaqeynaysay oo marxalado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan soo martay waqti xaadirkan aynu joogno waa goob cusub oo kullay iyo xaalad cusub iyo arday cusub iyo manhaj cusub iyo nidaam cusub iyo kullay isdhexgal cusub hadii la awood loo galaado halkan waxaan uga mahad celinayaa waalidka sharafta leh nagala soo qayb galay munaasabadan ardayda quruxda badan ee halkan iyaguna kullay shahaadada ku qaadan doona inta badan noo samreeyay kullay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintoodii wax soo baray ee wuxuu soo dhigay oo halkan jooga arday baa halkan caawa ku qaadan doonta hadii ilaahay awood loo galaado shahaado certificate oo kullay luqadda Ingiriiska soo dhiganayay muddo 6 bilood iyo wax ka badanba ardaydaas kullay hadii la awood la ka dhigo caawa waxa abaalmarin looga dhigi doonaa oo lagu abaalmarin doonaa shahaado ay ku qoran tahay muddo waqti ah oo ay soo dhiganayeen oo cadeynaysa beritoole hadii la awood loo galaado haday ku shaqo tagaan ama meel kale ay wax kaga raadsadaan in shahaadadaas ay anfici doonto Abbas Jaamac Digaale iyo Cabdishakuur Maxamed oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga maxadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Asar University ee magaalada Burco ayaa iyaguna ardayda kula dardaarmay inay sii wataan aqoontooda iyo waayahooda waxbarasho kullay barnaamijkeenu caawa waxa uu daaran yahay waa inaynu siino ardaydii markaa certificate-ka u qalmaysay ee markaa tiradoodu ahayd 104 arday ayaa waxay noo qaadanaysaa hadda la yiraahdo heerka koobaad ama heerka levelka koobaad ee shahaadada Ingiriiska oo noqonaysa maxay hadda la yiraahdo certificate ardaydaasi hadda la yiraahdo waxay soo waday waxbarashada muddo dhan 6 bilood iyo maxay hayday charger muddada markay dhameysay waxa ay istaahilaysaa ama ay mutaysanaysaa inay qaadato shahaadada maxay certificate-ka haddii aanu nahnay Asar waliba qaybta Ingiriiska hadaan nahnay waxaanu ardaydu waxay Ingiriiska ku baranaysaa muddo maxay ah 12 bilood 6 bilood oo horeysa ardayga waxaan ku siinaa shahaadada certificate-ka 5 bilood dambeena ardayga waxaan ku siinaa hadda la yiraahdo shahaadada heerka labaad ee maxay diploma anigoo u hambalyeynayaan leeyahay hambalyo guusha gaadheen iyo inaan insha Allah mid ka sii weyn gaari doontaan waxaan kamid ahay macallimiinta caafimaadka ka bixiya college-ka University Al-Azhar ka bixiya baan kamid ahay runtii waxaan marxaati ka ahay waqtiyada aan xiisaska galayo ama xiisaska bixinayo ama aan office-ka fadhiyo inaan arko arday fara badan oo ku practice gareynaya English waliba luqadda heerkoodu ay aad iyo aad u fiican tahay insha Allah waalidiinta halkan fadhiya waxaan marxaati uga ahay oo aan u sheegay anigoo aan ahay macallinkii Englishta inay arrintiina ama ubadkiina ay barteen aqoon aad u wanaagsan horta marka koobaad ilaahay baa mahad oo dhan u sugnaatay ilaahay baa inoo ogolaaday inaynu xafladeenna quruxda badan isugu dhimaadno ahaan Asar University ahaan yani tayada ardayda yani mataqaana waxaan leeyahay cilmiga ay barteen aad ayaan ugu kalsoonahay haddaan nahay ka macallimiin gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay maxadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Asar University ee magaalada Burco halka ardayduna ay shahaado sharaf ku maamuuseen maamulka iyo macallimiinta maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco